كل wanaagsan daawade halkan waa ila wareed news hadii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saaro like nota muuqaaladan soo gelino dhiirigelinayno tahay waad ku maasantahay socoshadaada waxaan ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaalida iyo caalamka muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo shaaciyay qorshe xasaasi ah inay markaasi dawladda Carabeed ay u igmadeen siyaasiyiinta Soomaalida muxuu yahay qorshahaasi ayaa muuqaalkan kugu soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad ku daawan doontaa Axmed Madoobe oo safar dibadeed u galay qorshe ka dhanah dawladda Soomaaliya wuxuu yahay qorshahaasi maxaa markaasi ka soo bixi doona ayaa muuqaalkan kugu soo gudbin doonaa sidoo kale muuqaalka waxaad ku daawan doontaa al-shabaab oo ay catay wada siyaasadeed isla markaana doonaysa qorshe ay ku soo jiidato shacabka Soomaaliyeed muxuu yahay qorshahaasi ayaa kugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaa u diyaar garow warkaasi oo faahfaahsan aynu ku bilaabnay agaasimiye hore ee hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa waxa uu shaaca ka qaaday qorshe ay markaasi wadaan dalal Carabeed oo ay gadaal ka riixayaan siyaasiyiinta mucaaradka ku ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud agaasimiye hore ee hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ee NISA Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa ifiyay qorshe xasaasi ah oo dawladda Carabeed ay markaasi u igmatay qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ku ah madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud dawladda Carabeed oo Fahad uu ku sheegay Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay bilowday inay xiriiro ay la yeelato qaar ka mid ah musharaxiinta ayna ka dalbato in dawladda federaalka Soomaaliya la wiiqo dalkana la geliyo qalalaas uga sii daraya xaaladda hadda taagan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maamulkiisa waa la mucaaradi karaa waana la dhaliili karaa waana qayb ka mid ah dawlad dhiska iyo sidoo kale horumarka dalka mucaaradku waa inay taladooda ay noqoto tala maxalli ah aysan noqonin tala shisheeyaha gadaal uu ka riixayo ayuu Fahad Yaasin ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maamulkiisa waa la mucaaradi karaa waana la dhaliili karaa waana qayb ka mid ah dawladnimada ayuu yiri markaasi horumarka dalka mucaaradku waa inay talaabadooda ay noqoto talaabo maxalli ah aysan noqonin tala shisheeye gadaal uu ka riixayo ama markaasi u adeegaya ajandayaal qaribaad ku ah danaha guud ee qaranka hadalka aan jilcino maalmahan waxa soo taraya warar sheegay in dawladda Imaaraadka ay bilowday inay xiriiro la yeelato qaar ka mid ah musharaxiinta ayna ka dalbatay in dawladda federaalka Soomaaliya la wiiqo dalkana la geliyo qalalaas ayuu markaas hadalkiisa ku sii daray musharaxiinta ee la kulmeen qaarkood waxa uu ku sheegay inay yihiin kuwii hore saaxiibada dhow la ahaa waxaase nasiib darro ah in kuwa ka mid ah musharaxiinta loo haystay inaysan danaha qaranka gorgortan aysan gelin doonin kana feejigan yihiin faragelinta mucaaradka Imaaraadka ay ku biireen kuwa sida qarsoodiga ah ula kulmay ee aqbalay in ay wada shaqeeyaan Imaaraadka Carabta mucaarad kale ah waa nacasnimo nacfi u leh shisheeyaha ayuu yiri Fahad Yaasin Xaaji Daahir iyadoo la rumaysan yahay in siyaasiyiin hore ay iskula shaqeeyeen isla markaana xilal sarsare ka qabtay dawladda Soomaaliya ay ka mid yihiin kuwa uu tilmaamayo hogaamiyaha maamulka Puntland Axmed Madoobe ayaa gaaray magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya halkaas oo ay ugu bilaaban doonto socdaal uu ku doonayo inuu xaalado kala duwan uu markaasi kala hadlo madaxweynaha waddankani isagoo markaasi booqashadiisu ay qaadan doonto dhowr cisho madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa maanta gaaray magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya halkaas oo ay uga bilaabatay booqasho qaadan doonto dhowr cisho siday ogaatay ila wareed news Axmed Madoobe ayaa Nairobi ka bilaabi doona qorshe culus oo ka dhan ah dawladda federaalka ee Soomaaliya oo haatan ay si weyn markaasi isku hayaan isagoo dhaqaaqyo iyo sidoo kale abaabul ka sameynaya magaaladaasi wararka ayaa intaasi ku sii daraya in ujeedka ugu weyn ee Axmed Madoobe uu yahay la kulanka xubnaha beesha caalamka ee ku sugan halkaasi isagoo kala hadli doona xiisadda sii kululaanaysa ee kala dhaxaysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taasi oo haatan ka sii dartay kadib shirkii golaha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sidoo kale wuxuu la kulmi doonaa madax ka tirsan dawladda Kenya iyo sidoo kale Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi isagoo kala hadli doona xaaladda cakiran ee Jubbaland ay ku jirto khilaafka u dhaxeeya Kismaayo iyo Muqdisho ayaa haatan yeeshay waji cusub waxaana hadda si weyn looga dareemayaa gobolka Gado ay dhaqaaqyo ay ka bilaabeen labada dhinac Gado ayaa haatan waxa ku gacan sareeya dawladda dhexe Soomaaliya waxayna isku fidisay inta badan degmooyinka gobolkaasi marka laga reebo Doolow waxaana ka howlgala ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si kastaba dawladda Soomaaliya ayaa wada qorshe ay markaasi maamul uga dhisayso Jubbaland arintaas oo sii xoogeysatay kadib shirkii golaha wadatashiga qaran oo lagu soo qaaday xiisadda ka taagan waxaana lagu go'aamiyay in loo baahan yahay in sharci loo wajaho xaaladda maamulka Jubbaland sidoo kale arinka Jubbaland ayaa waxa loo xil saaray inay markaasi ka soo tala bixiso wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya
dagaalka xooggan ee u dhexeeya labada dhinac ayaa markaasi muddo dheer soo socday, waxaana la xusuustaa fadeexadii ka dhacday Raas Kamboni oo lagu soo jabiyey ciidamadii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Ugu dambeyntiina kadib sanado badan oo ay markaasi ku haysteen cabsi gelin iyo arbushaad maleeshiyaadka Al-Shabaab, waxay bilaabeen mar kale inay dib u soo jiitaan qalbiyada shacabka Soomaaliyeed iyagoo qorsheynaya in markaasi xeelad siyaasadeed ay ku qabsadaan qalbiyada shacabka Soomaaliyeed. Kadib sanado badan ay awood ku hayeen cabsi gelin iyo rabshado, kooxaha jihadoonka ee Al-Shabaab ayaa hadda u muuqata inay bedeshay istiraatiijiyadeeda iyada oo isku dayeysa inay dib ugu soo ceshato saameynta ay ku leedahay Soomaaliya, iyadoo markaasi kasbanaysa qalbiyada iyo maskaxda dadka shacabka ah. kooxdan oo horey loogu yaqiinay arxan darre iyo xagjirnimo ayaa maamulkeedii deegaanada ay gacanta ku hayeen lagu xusuustaa dilal dadweyne, gacmo gooyn, madax jarid iyo sidoo kale ciqaabo kale oo adag oo markaasi lagu fuliyey dad markaasi masaakiin ah oo ku sugnaa deegaanada ay maamulayeen. Al-Shabaab waxay si joogto ah u baahan jirtay muuqaalo naxdin leh oo muujinayay madax jarid iyo sidoo kale askar la tooganayo si ay u cabsi geliso shacabka iyo ciidamada ammaanka. ku lug lahaanshiyaha dowladda ama ciidamada nabad ilaalinta caalamiga ah waxay ka dhigneyd dil sugan, ma ahayn oo kaliya shakhsiyaadka balse mararka qaarkood guud ahaan bulshooyinka oo dhan ayay saameyn jirtay. hase yeeshee kooxda ayaa lagu waramayaa inay qaadanayso qaab dhaqan cusub oo markaasi u eg mid loogu danaynayo shacabka si ay markaas uga faa'iidaystaan saameyntooda guud ahaan dalka, sida ay sheegeen falanqeeyayaal amni iyo sidoo kale ilawareedyo gudaha ah. maleeshiyaadka Al-Shabaab waxay isku dayeysaa inay isu muujiso inay tahay door kale oo markaasi suurtagal ah oo ka duwan dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoo soo rogaysa canshuuro hooseeya, nidaamyo maamul deegaaneed iyo sidoo kale kala dambeyn muuqata meelaha aysan dowladda aysan ka jirin ama aan markaasi ku shaqayn si hufan. isbedelada cusub wuxuu kusoo beegmayaa xilli ay jirto firaaqo amni oo sii fidaysa. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa wajahayay guuldarrooyin isdaba joog ah, gaar ahaan jiidda hore ee dagaalka sida Aadan Yabaal. inkastoo maalgelin waaweyn laga helay beesha caalamka gaar ahaan Mareykanka, haddana ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa ku dhibaatoonaya inuu xasiliyo guulaha la gaaray ama inuu markaasi si buuxda u maamulo deegaanada lagu muransan yahay. taageerayaashii caalamka ayaa hadda dib markaasi u eegaya ballanqaadyadooda, maadaama Soomaaliya ay u sii markaasi dhawaanayso inay si buuxda markaasi ula wareegto mas'uuliyadda amniga. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa dhawaan wuxuu ka digay hoos u dhac ku yimaada mushaarka ciidamada Soomaaliya, taasi oo la xiriirta yaraanta taageerada dhaqaale ay haystaan, wuxuuna sidoo kale muujiyay walaac ah inaysan jirin calaamado muujinaya xasilooni dhow oo Soomaaliya ay gaarto. dhanka kale, shir dhawaan ka dhacay Kampala oo ay isugu yimaadeen wadamada markaasi ciidamada u diray howlgalka midowga Afrika ayaa lagu soo jeediyey in la geeyo 8,000 oo askari oo dheeraad ah, xilli qaramada midoobay ay qorsheynayso in la dhimo tirada ciidamada ATMIS lana kordhiyo tababarka iyo sidoo kale qalabeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. isbedelada joogtada ah ee hoggaanka ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale carqaladeeyay sii wadida qorshaha. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilka ka qaaday taliyihii ciidanka bishii Juun 2023, balse dib ugu soo celiyay xilkii bishii November sanadda 2024, iyadoo laga jawaabayay guuldarrooyin soo noqnoqday oo laga soo markaasi warinayay deegaanada dagaalada uu ka socdo. guud ahaan wararkii aad kala socoteen Ilawareed News halka ayaan kusoo afmeeraya tan intaan kulmi doono. waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. haddii aad nagu cusubtahay fadlan subscribe saaro, like muuqaalada aan soo gelino dhiirigelin ayay noo tahay. waad ku mahadsantahay waqtigaaga iyo la socoshadaada. nabadgelyo.